qaboojiyaha holacyada aan dawo kale lahayn. Kadib 6 sano uu maamulkaas si nadiif ah u soo hayay, sidoo kale oo ahaa aabbaha dhalay ubad ama cagabarura isaga ka tafirmay, ma sii hayn doonaa isla boqortooyada iyo mulkiga mise waa laga qaadan doonaa. Waa dhul aad u ballaaran oo boqortooyadiisu ay ka dhisan tahay. Waa dhul iyo mulki iyo goolo rag kale ay u haminayaan ama ay rajaynayaan marun inay gacanta ku dhigaan. 2 aar oo dhalinyar ah oo dhuldoon ah ayaa markiiba ku soo habsatay. waa kii Ron ayaa reerka u hadhi doona. Hadafku waa inay dilaan, dhulkana ay ka qaataan. mana aha markiisii koobaad ee dagaal caynkan oo kale ah uu iska caabinayo ama uu u jilib dhigayo. hadda waa inuu ka tegaa isla maamulku hayay iyo goobihii uu maamulayay. walow uu dilay mid ka mid ah raggii ku soo duulay goobtani, waxaase la wareegay boqor cusub iyo maamul cusub. cagabaruuradii uu dhalayna waa in la laayaa oo ay nolosha maca salaamadeeyaan. waana xeer u dhigana ah oo midba meesha goobtu la wareego. hadda waa ku cararayaa qabayusle waa qabtay kan oo wadnaha ayuu kaga aroorinayaa. waa dilay oo nafta waa dhaafiyey. waana ficilay dhammaantood soo wada sameeyeen ama ay samayni doonaan marka ay la wareegayaan dhul cusub.